SSC qaatumo taageero military oo toos ah ayay ka heli doontaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib magacaabistii wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka daraawiishta SSC qaatumo la magacaabay. Shakhsiyadda taliyahan iyo saameynta uu SSC ku dhex leeyahay wasiir fiqi ayaan doonayaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo. Soo dhawaada saaxiibayaal, haddii aad nagu cusub tihiin ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran oo nagu soo biira. Aragtidiinana qaybta hoose ee comment-ka kaga soo dhiibta. muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiina si ay idinla daawadaan. Aan ku bilaabo. SSC qaatumo waxay u muuqanaysaa mid markan maalinta ka dambeysa sii kordhaya xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Markanse waxa ay helayaan fursad dhinaca ciidanka ah oo ay ku kobcin karaan kuna heli karaan saanad military. waxaa dhawaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya loo magacaabay Axmed Macalin Fiqi, kaas oo la xusuusto doorkii uu ku lahaa SSC qaatumo in loo aqoonsado maamul ku meel gaar ah isla markaana uu ka shaqeeyay ilaa heer loo aqoonsado dowlad goboleed ka tirsan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Imikan oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ah ee Soomaaliya, dad badan waxa ay qabaan in taageero dhinac kasta oo saanad military ah uu siin karo SSC qaatumo. Magaalada Laascaanood iyo deegaano kale oo ka tirsan SSC qaatumo ayaa si weyn looga dabaaldegay magacaabistiisii wasaaradda gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi. waxaa sii kordhiyay fursadaha SSC imikan ay helayso magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka SSC qaatumo ee daraawiishta Cabdifataax Maxamed Aadan Dabagale, kaas oo uu madaxweynaha maamulka SSC qaatumo u magacaabay taliyaha ciidanka daraawiishta SSC qaatumo markii uu iscasilay taliyihii hore sabab la xiriira in uu shaqadan sii wadi waayay. door muuqda ayuu ka soo qaatay horumarinta ciidamada SSC iyada oo xaalad adag uu ka soo samata bixiyay SSC qaatumo oo si weyn baraha bulshada looga mahadceliyay taliyihii hore. balse taliyaha cusub ee ciidanka daraawiishta ee SSC qaatumo loo magacaabay Cabdifataax Maxamed Aadan Dabagale waxa uu ka tirsanaa in muddo ah guutada 77 ee madaxtooyada qaranka, isagoo oo la soo shaqeeyay saraakiil sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya. waa shakhsi lagu sifeeyay inuu yahay hawlkar khibrad dhinaca ciidanka ahna leh, dagaalyahanna ah sida lagu daabacay baraha bulshada oo ay dadku ka falcelinayeen magacaabistiisa lana sifeynayay shakhsiyadiisa. Cabdifataax waxa uu saaxiib dhow leeyahay isla markaana uu galaangal xoogan uu ku dhex leeyahay taliska militariga. si gaar ah waxay saaxiibo u yihiin taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage. tani waa fursad kale oo ay SSC qaatumo ay haystaan oo ah in taageero dhinaca militariga ay ka helaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Cabdifataax Maxamed Aadan Dabagale waxaa looga fadhiyaa inuu dardargeliyo howlaha la xiriira dhinaca ammaanka ee SSC qaatumo iyo si la mid ah ka hortagga duulaan kaga soo food leh dhinaca Somaliland oo muddooyinkii ugu dambeysay daabaguleysay ciidamo kuwaas oo ay doonayaan inay dib u qabsadaan deegaano ka mid ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee SSC qaatumo oo toddobaadyo ka hor ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu booqday una aqoonsaday maamul rasmi ah oo ka mid ah maamulada dalka ka jira. waxaase Dabagale looga fadhiyaa in uu dardargeliyo howlahan iyada oo ay dowladda federaalka Soomaaliya markan haysato fursad weyn oo ay ciidan iyo saanad ciidanba ay ku geyn karto deegaanada SSC qaatumo. haddii Somaliland ay dagaal ku soo qaado Laascaanood ama deegaano kale oo ka tirsan SSC, waxay qabaan falanqayaasha in dowladda kolkan aysan ka gacan laaban doonin oo ay arrintan tallaab u qaadi doonto. waxaase dhawaan 34 sano kadib magaalada Laascaanood caga dhigtay ciidamo military ah oo ka tirsan guutada 77 ilaalo gaar ahna u ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. si weyn ayaana tallaabadaasi loo bogaadiyay. wixii warar ah ku soo kordha wararkeeni warbixinadeena dambe. SSC qaatumo taageero military oo toos ah ayay ka heli doontaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
kadib magacaabistii wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka daraawiishta SSC Qaatumo la magacaabay shakhsiyadda taliyahan iyo saameynta uu SSC ku dhex leeyahay wasiir fiqi ayaan doonayaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tihiin ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran oo nagu soo biira aragtidiinana qaybta hoose ee commentiga kaga soo dhiibta muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiina si ay idin la daawadaan aan ku bilaabo SSC Qaatumo waxay u muuqanaysaa mid markan maalinta ka dambaysa sii kordhaya xiriirka kala dhaxeeya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya markanse waxa ay helayaan fursad dhinaca ciidanka ah oo ay ku kobcin karaan kuna heli karaan saanad military waxa dhawaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya loo magacaabay Axmed Macalin Fiqi kaas oo la xusuusto doorkii uu ku lahaa SSC Qaatumo in loo aqoonsado maamul ku meel gaar ah isla markaana uu ka shaqeeyay ilaa heer loo aqoonsado dawlad goboleed ka tirsan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya imikan oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya dad badan waxa ay qabaan in taageero dhinac kasta oo saanad military ah uu siin karo SSC Qaatumo magaalada Laascaanood iyo deegaano kale oo ka tirsan SSC Qaatumo ayaa si weyn looga dabaaldegay magacaabistiisii wasaaradda gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi waxa sii kordhiyay fursadaha SSC imikan ay helayso magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka SSC Qaatumo ee daraawiishta Cabdifataax Maxamed Aadan Dabagale kaas oo uu madaxweynaha maamulka SSC Qaatumo u magacaabay taliyaha ciidanka daraawiishta SSC Qaatumo markii uu iscasilay taliyihii hore sabab la xiriira in uu shaqadan sii wadi waayay door muuqda ayuu ka soo qaatay horumarinta ciidamada SSC iyadoo oo xaalad adag uu ka soo samata bixiyay SSC Qaatumo oo si weyn baraha bulshada looga mahadceliyay taliyihii hore balse taliyaha cusub ee ciidanka daraawiishta ee SSC Qaatumo loo magacaabay Cabdifataax Maxamed Aadan Dabagale waxa uu ka tirsanaa in muddo ah guutada 77 ee madaxtooyada qaranka isagoo oo la soo shaqeeyay saraakiil sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya waa shakhsi lagu sifeeyay inuu yahay hawlkar khibrad dhinaca ciidanka ahna leh dagaalyahanna ah sida lagu daabacay baraha bulshada oo ay dadku ka falcelinayeen magacaabistiisa lana sifeynayay shakhsiyadiisa Cabdifataax waxa uu saaxiib dhow leeyahay isla markaana uu galaangal xoogan uu ku dhex leeyahay taliska militariga si gaar ah waxay saaxiibo u yihiin taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage tani waa fursad kale oo ay SSC Qaatumo ay haystaan oo ah in taageero dhinaca militariga ay ka helaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdifataax Maxamed Aadan Dabagale waxa looga fadhiyaa inuu dardargeliyo howlaha la xiriira dhinaca ammaanka ee SSC Qaatumo iyo si la mid ah ka hortagga duulaan kaga soo food leh dhinaca Somaliland oo muddooyinkii ugu dambeysay daabaguleysay ciidamo kuwaas oo ay doonayaan inay dib u qabsadaan deegaano ka mid ah dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee SSC Qaatumo oo toddobaadyo ka hor ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu booqday una aqoonsaday maamul rasmi ah oo ka mid ah maamulada dalka ka jira waxaase Dabagale looga fadhiyaa in uu dardargeliyo howlahan iyadoo oo ay dawladda federaalka Soomaaliya markan haysato fursad weyn oo ay ciidan iyo saanad ciidanba ay ku geyn karto deegaanada SSC Qaatumo haddii Somaliland ay dagaal ku soo qaado Laascaanood ama deegaano kale oo ka tirsan SSC waxay qabaan falanqayaasha in dawladda kolkan aysan ka gacan laaban doonin oo ay arintan talaab u qaadi doonto waxa se dhawaan 34 sano kadib magaalada Laascaanood caga dhigtay ciidamo military ah oo ka tirsan guutada 77 ilaalo gaar ahna u ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya si weyn ayaana talaabadaasi loo bogaadiyay wixii warar ah ku soo kordha wararkeena warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaan isha ku haya page-keena nabadgelyo